macdanta uraniumka sebolite-ka iyo guud gadaalan tigi doona sharaxaadanka 70-kii waa markaad fiirisid waa waqtigu waa 70-kii ilaa 80-kii waxyaabaha si gooniyan ugu tagayaan waqtigana la bariyaa baaray waxa baaray ruushka iyo qaramada midoobay UNDP iyo waxa baaray iyo Russia ayaa baareen maxaa laga baaray waxa laga midowga Soviet waqtigaas sorry hadda Russia taa maxaa laga baaray maxaa sal helay maxaa la raadiyay si fudud dhowr shay wax laga baaray dhowr shay wax laga baaray waxa waaye waa sidan waagaas ilaa iyo laga soo gaaray 80 horaanteedii waxa la helay marada xaggaas waxay ka tahay okay saddex ceel oo dhuusamareeb ilaa cadaadaha oo ceel shidaal ah saddex ceel oo ceel buur ilaa xaradheere ah hal hobyo ah oo afar waaqa ah hal ceel oo wisila oo giirawan loo yaqaano hal ceel oo maray caasha oo ceel buur iyo xaradheere ku yaalo ceel ceel qaboobe oo loo yaqaano dhanka bari ee ceel buur iyo galhareeri xigo dhankooda ceel dheer iyo galhareeri aan dhihi lahay shidaal hal ceel oo kamid ah waa tigi doonaa oo 103 numberkiisa la yiraahdo ayaa waxa ku jirto qiyaasan marka la fiirshay 1 bilyan oo fuusto kaligiis 10 bilyan oo fuusto kaligiis sorry 10 bilyan oo fuusto kaligiis ayaa ku jirto gaaska xaqiisa dhulkan la kabiyo leeyahay war dheer marka laga soo kaco oo hadda dhankan Ethiopia ay haysataa ilaa iyo marka dhankan u soo kacdid galinsoor iyo kor iyo gaalkacyo dhankan bari marka soo aadid dhulka gaaska halkaas waaye dhulka marka waa kala duwan yahay waxa ku jirana way kala duwan yihiin marka hal aan u dul tageynaa waxaan u dul tageynaa khayraadka koowaad xilliga la baaray iyo siday ku dhacday productionka wax soo saarka shamiintada wax shamiinta ay soo saarto ma jirtaa galmudug hadda ama Soomaaliya ya dhulkan waa dhulka ugu qanisan Soomaaliya marka xagga shamiintada iyo waxyaabaha lagu dhiso guryaha engineering waxa lagu dhiso waxaan ku dhex jiraan waa sheegaynaa gas iyo minerals iyo petrol iyo xagga idhig waxa wax lagu dhisay waxa wax lagu daweeyaan dul tageynaa waxaan dhan waa sahan la sameeyay oo sharciya daas waa Ingiriis ugu qoran sahanka la sameeyay oo sharciya waxa galmudug ku jiro oo la og yahay oo la xaqiijiyay dahab iyo platinum ayaa ku jiro macdanta ugu qaalisan caalamka uranium oo ka kooban potassium sulfate waxa laga sameeyaa dawooyinka hubka noocyadiisa kala duwan waxa ku jiro birta oo kobarka ah noocan loo yaqaan maxay ahayd marta oo adduunka qaali ka leadzinga iyo molybdenumka intaan oo dhan waa nooca bir noocay rabana noqdaane oo sidoo kale laga sameeyo electronicska hadday tahay telephone hadday tahay computer hadday tahay television hadday tahay camera hadday tahay gadgetkan hadday tahay microphone-kan ku hadlayo wax walba oo bir ku saabsan ayaa loo isticmaalaa waa dhulkeedii waxaa kaloo ku jira lithium and salt mining cusbay caan ku tahay galmudug saa ogtiin laakiin waa iyadoo ceeriin ah marka cusbada waxaa laga soo dhaandhiriyaa ama laga extract gareeyaa waxyaabo dawooyinka annaga aan ku isticmaalno oo sulfate-ka oo ku jiro potassium ku jiro waxyaabahaas cusbada annaga macnaha isha ku jiro ayaa naga badan annaga inteena galmudug degto inta Soomaaliya degto iyo adduunka oo dhanba ayaa ka badan mining-keeda marka in la qodo oo la helo mid kale cusbadu ma hantan kaliya badiya oo intee cusbadeeda badda inta la fariisiyo laga saaro kama hadleen halkaan cusbada taala aan taagana waxa laga cusbadaas inay qalbigaaga hadda ku jiraan ka fikirino tiibada kaliya ka fikiraysid okay waxa ku jiro sebolite-ku waxa weeyaan waa production-ka waa sifaynta biyaha iyo shidaalka loo isticmaalaa waa burjukada ceel buuri dhulkeeda laga isticmaalo burjuko dib lagu shidaan u naqaana laakiin burjukadaas waxa ku jiro ay macnaha dhagxaantaas burjukada laga sameeyo waxa ku jira waxa uga baahanna in shidaalka aan qodi doonana ayada lagu sifaynayaa biyaha aan cabno soo biyaha guryaha ceelasha lagu shubo to dawlad lagu shubo waa taas waay laakiin annaga hadda waxba nooma tadaa ku shubtay ayada lagu dhiman had sida ay tahay sidoo kale
waxaan leenahay oo adduunka qaali ka ah dhuxul dhagax wax loo yaqaano oo annaga hadda waxaana sahanka ugu badan runtii laga sameeyey dhulkan iisheeg buurha kaba iyo aadka caanka uga ah aad caanka uga ah iyo sibirka noocyadiisa kala duwan waxaan leenahay jimsimka waxa weeyaan hadda waa aragteen guryaha iyo hoolalka lagu shiro soo bahalo jibsi kuma dhegano oo dhaxda xash cad uga jiro xageen ka keenaa xagee waa la soo dhoofiyaa dalka adduunka ugu qanisan Soomaaliya waay maxaa loo sameyn waayay sidoo kale kobarka iyo ayonka sidoodan u dhaafaya waxaan u gudbayaa waxaan rabaa inaan tago sorry gabagaban maraa idinkoo ii sabraysiin raalliya waxaan rabaa inaan tago sahankii ugu dambeeyay 2015 wixii ka dambeeyay maxaa dhacay wixii hore waxaan malaynayno dhulkan galmudug waxaa loo yaqaanaa dhulka fidsan oo siliconka carradiisa carra guduud waaye u badan tahay carradaas waxyaabo laga helo oo laga sameeyo ayaa adduunka waxay ka yihiin qaali oo waxyaabo kala duwan laga sameeyaa hadda laga hadlaayo heshiisyada aad maqasheen London iyo dowladda iyo dad kala duwan ay ka sheekeynayeen iyo qaar mucaarada iyo maxaa loo yaqaan production sharing agreement BSA waxa la yiraahdo in la sahmiyo talacaga loo baahan yahay Soomaa in wax la sahmiyo shirkadaha maalgelinayaan shirkadaha qaarkood xilligii siyaasad baraa waxaa la siiyey shati waxay ku haystaan monopoly lagama taaban karo kuwa cusubna hadda ayaa heshiisyo la qorsheeyay in lala galo ama lala galay in sahanka horta la bilaabo meelaha marka shidaalka samballadooda ama sahanka inta la seega laga soo helo ceelkaas oo ceelkaas sheega 10 bilyan oo fuusta 131 waa caan reer galmudug askari halkaas ceel galmudug wuxuu isaga filan yahay laga yaabaa hal qarni oo socdo hal qarni markaa doo lagu filan yahay isdagaal muhiim ah waxaa runtii galmudug deegaanada Soomaaliya ayay ka mid tahay waxaa lagu qiyaasaa meelaha qofka ugu nasiibka daran uu ku dhasho 10 dal oo caalamka Soomaaliya ka mid tahay qofka inuu ku waayeelo meesha ugu nasiibka daran yani da'daas ku gaaro inuu soo noolaan karin carruurtiisa wax inay caawiyaan ma aanaysan dawladda iyo sanjir system qofka tari ilaa oo haynayo maxaa sababay marka annaga waxaan haysano inay dhici waayaan marka numberkaas 131 142 fiir guduudka waxa waay ceelasha la xaqiijiyo waay numberadan kale waa la sahmiyey xaqiiqadooda way socotaa ilaa hoosay noqonaya ilaa ay ka tegayso meeshaan isku hayna Kenya iyo annaga ilaa hoosa xageeda magaceed meeshaan isku hayna annaga Kenya maya yaa yaqaan eedalan ka soo dhacayso hoos soo aadayso ha exactly marka maxaan isku haynaa dagaalka tirada badan leh maxaa keenaya 5 block kaliya waay 5 block ee galmudug waa 1 2 3 4 5 6 7 soo siyaado intaan marka ceelashan waa xagee ceelashan ku dad aan sheegaya maahan waa offshore waxay ka badda dhexdeeda waxay ka sii xageeyaan 24 nautical mile ee gudaha ah ee dowlad goboleedka loo ogol yahay hadda sharciga hadda loo gudiyo barnaamijka soo ku qoran inay ka arrimiyaan waa seabedka waa gudaha badda